الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما وحن سلام يا شعبنا الصوماليين ملكس يدنودك كجنوا ليهين. المناسبة ومناسبة حساسية. وحن دوني إن أنا كهذا مرحلة السياسية هات المجرو أو مدن إن سلوا ملح لوجا فكروا سلوا جارو وأنا فوها بون حلقة حساسية. مركورة مقعد هو محمد علي سعيد أسبرو. وحنا هاي حبين كمدة بشدة رئيس كاه يدقن بنتلان sidoo kalena ah oday dalka u soo shaqeeyay oo soo qabtay xilal dawladeed dhan kale waxaan ahay oday u soo joogay marxaladii siyaasadeed ee dalku uu soo maray tan iyo dawladii dhexe markii ay dhacday 1991 intaas marka aan ku soo koobo cidda aan ahay waxaan rabaa inaan si kooban u abaaro marxaladii siyaasadeed ee dalku uu wajahay oo ah mid aan indhaha maanta laga qarsan karin runtii waa nasiib darro إن حسن الشيخ محمود وأحمد حوينيه دلك الصومالية ودلك أوهر سيدي قال الله سي يهو بنت الآن سياسة ما دام سي اسم دقيقة وبالمرسية هاي هفرعيدي سحظة أها وكوكرتي دستور كلا أو عصب أو أصيغ أو قارة وحورنتي خلق القليل قد سعود كي ديبوشيسينتي إيا دولة ديسكي دلكو وكسو سعودي wuxuu dhaawacay is-aaminidii iyo kalsoonidii ummadda ee soo socday wuxuu raacay madaxweynuhu jid ismaqiiq ah oo loo yaqaan meesha uu ku dhamaanayo si cad loo yaqaan balse waxaan filayaa in uu madaxweynuhu miirsan doono marka uu waqtigu uu ka dhamaado oo loogu yeero tendada afsiyooni waa haddii ay dhacdo taas oo loogu yeero wax yar haddii aan bulshada u bayaamiyo arrimaha dastuurka oo aadka loogu muransan yahay taariikh koobanna aan dul maro dastuurka ku meel gaarka ah ee qeexaya hanaanka federaalka iyo nidaamka dawliga ah ee dalku uu qaatay oo ah parliamentary leh xisbiyo badan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa uu shaqadiisa ay ka soo bilaabatay ahdi qarameedkii ka soo baxay shirweynihii Imbagati 2003-2004 kaas oo ay ansixiyeen 3,000 oo ah erga Soomaaliyeed waxa sidaas lagu qaatay nidaamkii federaalka ahaa ee aan ku soo caanamaalay in ahdi qarameedkaas loo bedelo dastuur waxa shaqadiisu ay bilaabatay sida la wada og yahay sanadkii 2005 waxa loo xisaaray guddi qaran kuwaas oo soo diyaariyay dastuur ku meel gaar ah kaas oo ku yimi وتشي بشو يمت سياسات أو سعودي سنديه لبضكون يتوانكا إلا إن لبكون لبي يتوانكي كدمنا لجو أنسعي أفتل لجا قاضي إرجس وماليات أو لن سديد بقول لبعتن شن إرجي مقدس كوني أجوس لبضكون لبي يتوانكي وحاسدا سكون دقن جاي دستور كميلجات كها داركون وحكب حي دولتي كميلجات كهي وحاسب ولد شري qodobo dhimanaa oo heshiis aan laga gaarin kuwaas oo ay ka mid yihiin kala xadeynta awoodaha wadaaga khayraadka garsoorka iyo amniga qaranka iyo maqaamka caasimadda sababta qodobadan heshiis loo gaari waayay waa inaysan markaas dhisnayn dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo heshiiskan qayb ka noqon lahaa marka laga reebo Puntland iyo Somaliland oo siyaasad ahaan iyagu maqan sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah cutubkiisa 15 qodobka 132 farqadiisa koowaad waxay qeexaysaa waxba laga bedeli karo mabaadiida asaasiga ah ee ku cad cutubka koowaad ee dastuurka kuwaas oo ay ku jiraan nidaamka federaaliga ah hanaanka xisbiyada badan jinsiyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waana kuwa uu Xasan uu hadda bedelay mana la bedeli karo haddaba dalku uma baahna maanta dastuur la bedelo ee wuxuu u baahan yahay in laga heshiiyo lana dhameystiro qodobada dhiman ee dastuurka iyadoo loo marayo wada tashi ballaaran iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay sida uu farayo dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 50aad qodobadiisa 50aad iyo 54aad qodobkiisa 133aad farqadiisa koowaad ilaa iyo farqadiisa 12aad si dastuurka dalku uga baxo ku meel gaar looguna diyaariyo afti dadweyne haddaba dastuurka ku meel gaarka ah ee aan ka soo sheekeynay ee la isku wada raacsan yahay waxa uu ka kooban yahay 14 cutub
oo u qaybsan 143 qodob waxaana la isku raacsan yahay oo kaliya qabyatirka dhamaystirka dastuurka oo ay ugu muhiimsan yihiin arrimahan kow maqaamka caasimadda labo cadaynta awoodaha dawladda federaalka ah iyo tan dawladaha xubnaha ka ah saddex qaybinta khayraadka iyo dakhliga dalka afar xadaynta awoodaha garsoorka maaliyadda iyo amniga labada heer federaal iyo gobol shan dhisidda maxkamad dastuuriga waxa kaloo dastuurku faraya dhismaha guddiyo madax bannaan oo xoojiya awoodda shacabka tayeynta hufnaanta iyo madax bannaanida hay-adaha dawladda haddaba taas beddelkeeda muxuu rabaa xasan sheekh maxamuud waa tan loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed in ay ogaato xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya muxuu doonayaa wuxuu rabaa madaxweynuhu marka la soo koobo waa 5 qodob kaliya oo dantiisa siyaasadeed uu ku fushanayo haddaba 5taas qodob waxaan rabaa Soomaaliya inuu iftiimiyo xasan sheekh maxamuud waxa uu doonayo midda koowaad xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu wuxuu doonayaa in madaxweynaha qof iyo cod lagu soo doorto taas ma xuma laakiin maxaa ku hoos duugan waa in la ogaadaa qof iyo cod in madaxweynaha lagu soo doorto waa waxa loo baahan yahay laakiin arrinta xasan sheekh maxamuud maxaa ugu hoos duugan waxaa ku hoos duugan marka koowaad in xasan sheekh uu xilka sii hayo ilaa madaxweynihii bedeli doona lagu soo doorto qof iyo cod taas oo macnaheedu yahay muddo kororsi ama aan iska fadhiyo kursiga inta duruufaha siyaasadeed ee ka hor gudban doorasho qof iyo cod ay xalismayaan sida aad la socotaan taariikh siyaasadeedka dalka laga soo bilaabo 1960kii marna laguma soo dooran madaxweynaha qof iyo cod waxaa dooran jiray baarlamaanka marka laga reebo xilligii militariga ee la wada ogaa sida uu xaalku ahaa madaxweynuhu waxa uu rabaa in uu inaga dhaadhiciyo dalka doorasho qof iyo cod ah ayaa ka qabsoomaysa ka hor 15 May 2026 sana wala dhici kara waxaana lagu dooranayaa golayaasha deegaanka ee dalka oo dhan baarlamaanada iyo madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah federaalka iyo baarlamaanka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyada oo aad ogtihiin Somaliland in ay maqan tahay Puntland iyo dawladda federaalka ahna aysan arrimaha hortabinta u leh ka gaarin heshiis siyaasadeed in badan oo koonfurta dalka ahna ay ashabaab haysato warbalse dalkaasi duruufahaas ay uga bixi karaan iyo duruufo kale oo ciidaas ka badan waa arrin iska cad in aysan suurtagal ahayn ajandaha labaad ee xasan sheekh maxamuud waxa weeye in uu guddi doorasho oo qabta doorashooyinka labada heer uu magacaabo federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka oo uu madaxweynuhu aasaaso taas oo ka dhigan go'aaminta cidda ka soo baxaysa dawladaha xubinta ka ah federaalka wuxuu rabaa inuu asaga guddi gaar ah dalka oo dhan ay u soo xulaan xubnaha baarlamaanada oo dhan ajandada saddexaad waxa weeye in jagada ra'iisul wasaaraha meesha laga saaro oo madaxweyne ku-xigeen la sameeyo ama laga dhigo ra'iisul wasaare madaxweynuhu uu eri karo baarlamaanka la'aantiis baarlamaankuna uu ahaado magacuyaal aan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare xilka qaadi karin ajandaha afraad ee xasan sheekh maxamuud waxa weeye in laba xisbi oo mid hantida iyo awoodda dawladda lagu dhiso iyo mid malxiis u noqda inkastoo hadda 3 xisbi laga dhigay sheekadii taas oo aan waxba ka bedelayn ujeedada xasan sheekh maxamuud iyo ajandaha shanaad oo ah hal deegaan doorasho oo liis xiran ah magacyada xildhibaanada iyo kuraastaba uu hogaamiyaha xisbigu uu go'aamiyo ajandahaas ayaa u cad xasan sida muuqatana waxa uu dawladnimadii ka dhigtay shaar uu isagu tolanayo intii wax garadka ahayd waa u jeedaa mana ahan arrin qabiil iyo deegaan gaar ah ay diidan yihiin waa geedi socodkii dawladnimadii Soomaaliyeed oo meel khaldan loo leexinayo waxaa la yaab leh xildhibaanadii wax ka ansixiyay ma yaqaanaan ilaa iyo hadda waxay ansixiyeen habraaci loogu talagalay lama raacin waa kabta karinta saar waa la dadajiyay wax kasta waxaad moodaa in madaxweynuhu uu dameer xaaba ay kala taagnaayeen waxaan si gaar ah halkaan fariin uga dirayaa xildhibaanadii reer Puntland ee qaybta ka ahaa falkaas waxaad hoos u dhigteen maqaamkiinii iyo xasaanadiinii aad kula haydeen Puntland intaas oo kaliya ma ahan waxaad samayseen qiyaano qaran maadaama aad ansixiseen qodobo lid ku ah dastuurkii la isku raacsanaa siiba qodobo lid ku ah deegaanadii aad matalayseen sidoo kalena dhaawacaysa dawlad dhiska Soomaaliya oo dhan waa tallaabo aan la idinka filayn runtii
إن آد مصيركي بنتلان إيه تندلك أو دنبا آد دافستين دنجار إيو شلماد ير أو جبكي نولدي كوشوي كل تبرشة رير بنتلان وإذن أركتاه وحادنا أو أهان دونتان تكعن بارله لكن waxaan bogaadinayaa dawladda Puntland iyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani sida xilkasnimada leh ay uga jawaabeen arintaas iyagoo oo waliba luqad dastuuri ah ku hadlaya waa jawaab ay Puntland abaar u leedahay oo dastuuri ah ma ahan in danta Puntland ee kaliya ay ku jirto ee danta Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku jirta in la qaadaco dastuurka cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud jaabka uu ku watay ugu dambeyn waxaan bulshada reer Puntland iyo Soomaaliyeed u sheegayaa in dhamaystirka iyo qabyatirka dastuurka aan la diidanayn balse la diidan yahay bedelida dastuurka taas oo ah wixii xamar ka dhacay maalnimadii sabtidii wabillahi tawfiiq aad u salaamtii